Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkana waxaan idinku soo gudbinayaa warqadaha lagu diiwaangelinayo ardayda ee qaabka waxbarasho ee xagaaga. Warqadan waxay qusaysaa qoysaska ilmahooda ay dhigtaan iskuulada dadweynaha Lewiston. Fadlan u buuxi form khaas ah cunug walbo oo ka mid ah qoyskaaga oo wax ka barto iskuulada Lewiston. Lambarka koowaad waxaad ku qoraysaa magaca waalidka khusaysaa kan. Lambarka koowaad waalidka khusaysaa, magacaaga koowaad iyo magaca awowgaaga ku qoraysaa halkan. Lambarka labaad ardayga khusaysaa, waxaad ku qoraysaa magaca awowgiis. Lambarka saddexaad haddana ardayga khusaysaa, magaciisa koowaad halkan ku qoraysaa. Lambar afar waxaad halkan ka xulanaysaa iskuulka uu ardayga dhigan doono markii iskuulka la furo. Haddii Connors uu yahay waa lambarka koowaad, Farwell aa ku xiga, Geiger, McMahon, Montello. Dugsiga dhexe Lewiston Middle School. Dugsiga sare ee Lewiston iyo LRTC hadduu dhigto halkan dooranaysaa. Kana waxaa waaye Academiyada Impact hadduu dhigto xarunta Longley. Haddii iskuul kale uu dhigto halkanaad gujinaysaa, magaca iskuulkaas halkanaad ku qoraysaa. Lambarka shanaad fasalka uu ardayga dhigan doono ayaad halkan ka dooranaysaa. Fasalka xanaanada hadduu yahay nursery, fasalka koowaad, fasalka shanaad, fasalka toddobaad, fasalka siddeedaad, halkaas aad ku qoraysaa ilaa ay fasalka 12aad. Marka intaas buuxiso oo boggan aad dhamayso, haddana halkaa hoose aad ku dhufanaysaa si bogga xiga uu kuu geeyo. Waan gujinayaa and then kan waxaad ku buuxinaysaa ciwaanka gurigaaga. Marka lambar 6 waa lambarka guriga, halkaasaa ku qoraysaa. Lambar 7 waa magaca wadada aad degan tahay, halkaasaa ku qoraysaa. Lambar 8 waa lambarka apartmentiga, halkaasaa ku qoraysaa. Marka intaa aad buuxiso haddana halkaas hoose xiga ayaad gujinaysaa. Haddii aad rabto inaad ku noqoto boggii hadda aad soo dhaaftay, halkaasaad riixaysaa, dib ugu noqo, halkaasaad gujinaysaa si haddii aad wax kaa soo khaldameen oo kaleeto waad ku noqon kartaa, waad soo hagaajin kartaa. Haddana bogga xiga aan aadno. Halkana waxaa waaye boggana waa bogga ugu muhiimsan waaye. Si fiicanana u sharaxayaa. Waa 2 qodob waaye. Labada qodob waxay kala yihiin haddii aad rabto in ardaygaaga uu guriga kuu joogo, guriga wax ku dhigto oo halkaas waxbarashadiis aad doonayso inuu ku qaato, qodobka u koraad riixaysaa, kaasaad riixaysaa. Laakiinse haddii aad aadan rabin oo aad rabto in ardaygaaga waqtina iskuul kuu aado, waqti kalena guriga wax ku dhigto, kan hoosaa riixaysaa. Marka fadlan waxaad ogaataa markaad aad xulato qaabka aad rabto oo ardaygaaga inuu wax kuu barto, ma bedeli kartid. Marka 4 bilood waa inaad sugtaa, ugu yaraan 4 bilood aad sugi. Marka taas uu dhammaado ayaad ayaan lagu bedeli karaa qaabka kale marka aad doonayso. Marka waa muhiim in aad halkan ka xulato qaabka aad rabto adiga. Waana lambar 9. qaabka u kore waxaan dhahnay qaybta kore waxaan dhahnay waa haddii aad doonayso ardaygaaga inuu waxbarashada uu kugu qaato guriga, qaybta kore waa. Balse haddaanan taa rabin oo aad rabto inuu nisna iskuulka uu aado, nis kalena waqtina iskuulka uu ku aado, waqti kalena aad rabto inuu guriga wax ku barto, kan hoosaad dooranaysaa. Marka inta aad dhamaysid qaybta haddana waxaad u gudbaysaa xiga waa. Laakiin haddaad doorato kan aad leedahay aniga anigayga guriga waxay igu barto haddaad dhahdo ka aad doorato, aad meesha xiga aad taabato, waxaa waaye wuu dhamaanaya, sahanka wuu dhamaanaya. Waa su-aasha u dambaysa. Laakiinse haddii kan aad doorato ka xiga, waxaa waaye aad halkaa gujiso, su-aal kale kusii weydiinaya. Waa su-aasha 10aad. Wuxuu ka hadlaa gaadiidka. Ardaygaaga gaadiid ma u baahan yahay? Bas qaado ma u baahan yahay? Haa iyo maya aad kala dooranaysaa. Kan hore haa waaye, kan xiga maya waaye. Kan xigaad daawanaysaa. Wuxuu ku weydiinayaa inaad qorshaysanayso in wax iska bedelayo nooca gaadiidka. Tusaale ahaan haddii aad dhahdo kaleeto maya ardaygayga anaa iskuul geysanaya,
oo kaleeto marka meeshaas haa imaya dhahaysa haddii wax iska bedelayo haad leedahay haddii waxba iska bedelayno oo cunugaada bas uu ku qaadayo mayaad leedahay haddana qaybta xigaad mise haddii oo mataqaanaa cunugaaga hadda uu pre-K mise kindergarten hadda uu bilaabayo oo hadda sanadka iskuul ugu horeyso kan hoosaad dooranaysaa okay waa dhamaad marka halkan markaad imaato waxaa ku leeyahay mahadsanid maamulka dugsiga ayaa kula soo xiriiri doonaa toddobaadyada soo socdo oo ku faahfaahin doona qorshaha waxbarashada cunugaaga laakiin waxaa kaloo aan ku celinaya mar labaad inaad xusuusnaato oo inaad buuxiso foomkan cunug kasta ee qoyskaaga ka tirsan haddii 2 iyo 3 iyo 4 aad la haysato mid walba warqadiisa gooni ugu buuxinaysaa marka halkan imaato halkaasaad gujinaysaa dhameeyey anaga waa dhameysay saankii la rabay inaad dhamaystirto marka insha allah foomkan hala buuxiyo haddii wax su-aal aad qabto oo mise aad rabto in lagaa caawiyo buuxinta foomkan markasta lambarka aad soo wici karta waxaa waaye 2 eber 7 6 7 6 1 3 9 6 lambarkaas soo wac haddii aad rabto in lagaa caawiyo sida foomkan mise warqadan loo buuxin lahay haddaad rabto inaad warqadan adiga aad rabto inaad buuxiso bogga internetka iskuullada ayaad geli kartaa halkaasaad ka fiirsan kartaa bogga internetkana waxaa waaye iskuullada waxaa waaye www.lewistonpublicschools.org marka halkaa gasho uu ku furmo bogga uu ku furmo iskuullada dhinaca bidixda waxaa jira button mise button guduudanaa jira kaasaa riixaysaa marka foomam badanaa meesha ku jiraan oo luuqado kala duwan ay ku jiraan marka luuqada Soomaaliga marka meesha aad ka dooranaysaa marka saasaad ku sameynaysaa haddii ilaahay mar labaad in ku celiyo haddii wax su'aal qabtiin mise haddii rabto in idinka caawiyo warqadan buuxinteeda fadlan lambarkan soo waca 2 eber 7 5 7 6 1 3 9 6 waad mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu